السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصدح يلباتنك محرم سنة كنا فربغل فرتني سيدات تاريخ ذا هجرية وخميس ميلاد يضن يكون بيغان تاي سغالك بيشة الضبات سنة كاللباكن لح يلباتن قضبضا وقوة وين برنامج كنا وحا كميدة إيران أيا حالي سيدران أدو قيدة قار كميدة سالجيدا مرايكن كل يهي برغة دحي يضو دقين تا إيران أي سعوتي إلا إيا ساكا waxaan ku haynaa wararkii ugu dambeeyay dagaalka Mareykanka Iran iyo Mareykanka oo garaacay qaar kamida magaalooyinka dalka Iran qodobada sidoo kale aanu barnaamijkeedu ku haynayna waxa kamida wasiirka arrimaha dibadda dalka Iran Abbas Araghchi ayaa si adag uga hadlay weerarka markale Mareykanka uu ku soo qaaday dalka Iran qodobada sidoo kale barnaamijkeenu ku dul istaagi doonayna waxa kamida markale waxa dood cusub ay ka bilaabatay caafimaadka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump kadib markii shalay uu ku tilmaamay Japan inuu yahay dal muslim ah oo ku tilmaamay dawladda islaamiga ee Japan sheeko yaab leh xalay ilaa iyo maanta warbaahinta haysato ayaynu barnaamijka ku faaqidi doonaa qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doonto qodobka ugu dambeeya waxa kamida qaar badan oo ka tirsan Congress-ka dalka Mareykanka ayaa si weyn uga soo horjeestay weerarada cusub iyo dagaalka markale uu ku biloobay Mareykanka dalka Iran iyadoo faahfaahinaya barnaamijka ku maqli doonta qodobkaas iyo qodobo kale oo aynu barnaamijka ku eegid soo dhawaada markale magacaygu waa Mustafa Ali halkan waa Kow Somali Media xalay ilaa iyo saaka Iran waxa ay si daran u garaacaysay qaal kamida saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay bariga dhexe dalalka Iran markale ay beegsatay waxa kamida Bahrain Kuwait iyo sidoo kale Qatar iyadoo sidoo kale xalay ilaa iyo maanta heegan ay ku jiraan nidaamyada difaaca dalka Imaaraadka Carabta iyadoo guud ahaan dalalka Khaliijka ay wajahayaan hadda cabsidii ugu weynayd oo ay wajahaan waqti dheer Iran waxa la sheegay in ay ku garacday dhowr iyo 30 gantaal wararka qaar ayaa sheegaya 38 gantaal in ay ku dhufatay dalalka Kuwait Bahrain iyo Qatar iyadoo muuqaalada qaar warbaahinta baraha bulshada la soo dhigay ay muujinayeen qaar kamida saldhigyada Mareykanka ku leeyahay bariga dhexe oo gubanaya Iran waxa ay sheegtay inay uga jawaabi doonto weerar walba oo uga yimaado dhinaca Mareykanka Israa'iil iyo xulufadoodaba si adag weerarada Mareykanka oo dib uga bilaabay Iran ayaa waxa ay ku soo beegmeen xilli dawladaha ku midaysan isbahaysiga NATO ay ku kulansan yihiin dalka Turkiga magaalada Ankara iyadoo Mareykanku uu si adag ula hadlay dawladaha NATO kuna dhaliilay sida ay garabka uga baxeen oo aynu u garab istaagin Mareykanka dagaalkii kan ka horeeyay intaan la gelin is-afgaradka oo Mareykanka keligii ku noqday Israa'iil haddaba waxaynu isla eegi doonaa Mareykanka ayaa isla dhinaciisa xalay waxa uu weeraray magaalooyin ku yaala dalka Iran iyadoo habeenkii labaad oo weerar isdaba jooga ay ahayd uu Mareykanka ku qaaday tan intii uu dagaalka sheegay inuu dib u bilaabay Mareykanka Trumpna uu ku dhawaaqay in uu dhamaaday MOU-gii Memorandum of Understanding ama isfahamkii Mareykanka Iran magaalooyinka xalay Mareykanka ay beegsadeen waxa kamida magaalada ku taala koonfurta ahna magaalada ugu muhiimsan dhanka nuclear-ka dalka Iran ee loo yaqaan Bushehr sidoo kale magaalooyinka la beegsaday waxa kamida Bandar Abbas xiisada labada dhinac ayaa sii balaaranayso ama sii weynaanayso waatana Al Jazeera warbixintii ugu dambeysay ka diyaarisay xiisada labada dhinac U.S. Central Command says it has completed a second night of airstrikes on Iran. At least 4 people have been killed. The attacks came just hours after U.S. President Donald Trump said the agreement with Iran was over and warned of more strikes. These are the latest images coming out of the southern port city of Bushehr. It's home to one of Iran's most important nuclear power plants. In Iran's port city of Chabahar, media have reported strikes targeted 2 docks and a maritime control tower, and the shrapnel hit the Imam Ali Hospital. Several power lines were also cut, causing widespread power outages in the city. Most of the targets are located in southern Iran, especially along the Strait of Hormuz. State media have reported explosions in major port cities, including Bandar Abbas, Sirik, and Jask. Explosions have also been heard on Abu Musa Island near the entrance to the strait. In the city of Iranshahr, airport facilities were targeted. U.S. President Donald Trump has been speaking to media on Air Force One. He said that returning to a full-scale war with Iran is on the table,
but that Tehran wants to make waayahay taasi waxay ahayd warbixintii qayb ka mid ah Al-Jazeera ay ka diyaarisay waradii ugu dambeeyay Mareykanka xalay uu ku qaaday dalka Iran sida Al-Jazeera ay ku waramaysay warbaahinta kale caalamkaba meelaha Mareykanka xalay uu beegsaday waxa ugu muhiimsanayd magaalada ku taala koonfurta dalka Iran ahna magaalada dhanka nuclearka Iran ugu muhiimsan ee Bushehr goobaha sidoo kale la beegsaday waxa kamid ah Jabahar iyadoo Jabahar laga beegsaday goobta ugu muhiimsan ama isbitaalka Imam Ali Hospital oo kamid ah isbitaalada ugu waaweyn dalka Iran sidoo kale Abu Musa Island oo u dhow ama saaran marinka Hormuz ayaa iyana la beegsaday si kastaba ha noqotee dhanka Iran iyadoo waxa ay ka bixisay jawaabo adag iyadoo duqeyman ballaaran ka geysatay qaar ka mid ah saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay bariga dhexe waayahay saaxiibada qiimiga loo qodobka xiga barnaamijka wasiirka arrimaha dibadda dalka Iran Abbas Araghchi ayaa waxa uu si weyn uga hadlay dagaalka Mareykanka uu dib uga bilaabay dalkiisa Abbas Araghchi waxa uu sheegay in Iran ay u diyaarsan tahay inay u jawaabto cadowga waxa uu sheegay si kasta oo ay noo beegsadaan jawaabtu waxa ay noqonaysaa inaan inagana ku beegsano meel walba oo ay ku sugan yihiin taas oo macnaheedu ay tahay in Iran ay diyaarinayso weerar saf ballaaran oo mar kale ay ku laba kaclayso ama ay dib ugu qaado qaar ka mid ah dalalka khaliijka dalalka bariga dhexe ku yaala ee sida weyn uga walwalsan xiisadan dib u cusboonaatay waxa ka mid ah Jordan Oman iyo sidoo kale Imaaraadka iyo Sacuudiga inkastoo wali Sacuudiga Oman iyo Jordan aan wali la gaarin haddana waxa la xasuustaa dagaalka socday 40 maalmood ee Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iran inay sababtay in Iraaniyiintu ama ciidamada ilaalada kacaanka dalka Iran ay beegsadaan dhammaan dalalkaasi si kastaba ha noqotee Abbas Araghchi oo ka hadlay hadal Donald Trump uu ku hadlay oo ahayd in ay ama uu aflagaadeeyay Iran oo uu ku sheegay madaxdeeda inay tahay kuwa khiyaano badan waxa la weydiiyay Abbas Araghchi Trump wuxuu idinku sheegay inaad tihiin kuwa marka wada hadallada la yimaado khiyaamo badan oo wax khiyaameeyo arintaasi maxaad uga jawaabaysaa wasiirka arrimaha dibadda dalka Iran waxa uu yiri anaga caay ugama jawaabna caay ee ficil ayaan uga jawaabnaa macnaha hadal kuma jawaabna buu taagan yahay ee anaga gantaalada ridada dheer iyo drones ayaan ku jawaabnaa waa hadal hanjabaad toos ah oo Iran ay u diraysan Mareykanka hadda rajadii ahayd in Mareykanka Iran xaaladooda lagu dhameeyo wada hadallo waxa ay fuushay meel halisa Trump hadda wuxuu taagan yahayba Iran anay rabtaa inay disho waaba sheekada ugu yaabka badan wixii Netanyahu iyo kooxdiis ay faafinayeen oo in Iran ay kaliya u soconin Israa'iil iyo Mareykan siyaasadooda iyo arrimahooda laakiin ay u socoto inay madaxda Mareykanka beegsato ayaa hadda u muuqanayso in laga dhaadhiciyo Donald Trump sida u socday Trump wuxuu taagan yahay liiska dadka la rabo in la dilo aniga ugu horeeya macnaha waa sheeko cusub iyo propaganda cusub waxaa moodaa in Mareykanka qodobada heshiiskii 14 uu ku qanci waayay kadib markii aad looga farciyo leer waa laga guuleystay oo Mareykanka laftirkiisa madaxweyne ku-xigeenka JD Vance iyo kulli ay qireen in ragga wada xaajoodka Iran u qaabilsan inay rag la yaab leh wadamadii NATO ayaad moodaa in laga dhaadhiciyo dagaalkan in hadda la wada galo oo Iran lagu goobto waayo wadamo markii hore diidana dagaalka ayaa hadda la jiro Trump Jarmalka kamida Jarmal markii u dambeeyso dhan hogaamiyaheedu uu ka soo horjeeday shalay si cad wuxuu u sheegay Trump uu naga garleeyahay in laba qodob uu naga garleeyahay dagaalka Iran inaan garab sax lagu siinin dhaqaalaha inaan looga qayb qaadanin oo 80% dhaqaalaha NATO dhanka military ku baxaya in Mareykan keligii uu bixiyo sax ma ahan buu yiri 20 ay bixiso Europe ana 80% Mareykan bixiyo 20% ay Europe bixinaysa waana looga garleeyahay ana Europe tiyaab isdhiibtay sheekada ugu yaabka badan waa yahay saaxiibada qiimiga loo qodobka isla meeshaynu ku dhaafeynaa wixii ku soo kordha xaaladan iyo xiisadan barnaamijyada dambe ayaynu ku qaadaa dhigi doonaa waxaan u gudbeynaa qodob xiisa leh Trump ayaa mar kale xaaladiisa caafimaad waxa ay dhalisay dood weyn kadib markii hadal shalay si weyn warbaahinta u qabsaday oo loo falanqay baraha bulshada la iswadaarsanay oo Trump la imaaday Japan oo muslimiintu ku noolba ay tirsan yihiin masaajidda ku yaala ay tirsan yihiin islaam inuu maamulo iska dhaaf wuxuu la yimid shalay wuxuu ku leeyahay Islamic Republic of Japan dawladda islaamiga ee Japan macnaha wayna weerartay waan weerarnay adee 11 gantaal aan ku dhufano kulay macnaha may 11 gantaal ay ku rido dhaay maraakiibta Mareykanka Japan ku ridi waa hadalka Trump u dhaay waa idin la wadaagi doonaa saan kula Islamic Republic of Japan 11
gentalis ayay ku dhufatay maraakiibta Mareykanka gaar ahaan kuwa qaada diyaaradaha dagaalka ee Abraham Lincoln. Macnaha waa hadal yaab leh in madaxweynihii Mareykanka uu leeyahay waana la garaacay waxaana garaacday dawlad Islaamiga oo Japan la dhaho. bal ila daaba hadalka la yaab kale ee Donald Trump. I told the story yesterday. We had 111 missiles shot by the Islamic Republic of Japan. They were shot at the aircraft carrier. wuxuu ku leeyahay sida aad maqlaysaan 111 aan lagu dhuftay waxaan ugu dhufatay buu ku leeyahay dawladda Islaamiga ee Japan. macnaha waxay noqotay horta 101 gantaal goorma lagu dhuftay diyaaradaha dagaalka Mareykan waa dooda koowaad. dooda labaad waxa waaye Japan goormay dawlad Islaamiga noqotay waxyaaba shock ah. Japan goormay dawlad Islaamiga isku bedeshay Japan waligeed dawlad Islaamiga ma noqonin. macnaha Trump wali waa dhaaftay wixiisa xadkii dhaaftay adduunka dhan uu dabagadi wuu wareeriyay dawlad Kristaano Islaami ka dhiga mid Kristaan mid Islaam and Kristaano ka dhiga wixii dhan buu isku walaaq ay noqotay arrin maartay warbaahinta qabsatay. waayahay saaxiibada qiimiga loo qodobka ugu dambeeya barnaamijka qaybtan waxaynu ku soo xireynaa qaar badan oo kamid ah Congress-ka dalka Mareykanka ayaa si weyn markan uga soo horjeestay weerarka soo cusboonaaday ee Mareykanka uu ku qaadayo Iran. horta dagaalkan wali aan idin la socodsiyo Israa'iil kuma soo biirin. Israa'iil wali waxay duqeynaysaa Lebanon iyo Falastiin iyo waxa moodaa Netanyahu iyo kooxdiisa inay qaab farsamaysan wax u wadaan. Trump dagaalkan la geliyay Trump dagaalkan Iran u wadaa. Iran ma harayso inta lagu garaacay inta jeeray la garaacay laba habeeno isku xigta la garaacay. Iran hadiyada waxay duqeyn ku wadaa dalalka bariga dhexe ma harayso. marka sheekadu way sii adkaanaysaa. Iran ma joogsanayso. sheekada marka qaybtii yaab kala waxa waaye Congress-ka dalka Mareykanka isbuucii la soo dhaafay ama 10 maalin ka hor waxay isku raaceen in loo diido Trump dagaal kale inuu galo. hadduu galaana waa inuu noqdo mid sharci oo Congress soo maray. mar kale waxaad moodaa sanadkii Congress-ka labadaba dagaal u samarsin haddana inuu ku noqday. isagu wuxuu leeyahay dagaal koobanaan soo afjarnay ciidanka taliska dhexe Mareykanka. laakiin Iran dagaalkan inta la garaacay in la mid ay garaacaysa oo hadda Imaaraadka iyo Kuwait iyo Qatar iyo Sacuudiga iyo kulli wadnay farta ku hayaan. wali waxaa suurtagal ah leeyihiin qubarada in saacadaha soo socda Israa'iil ay ku dhufatay Iran. waayo Israa'iil wali waxay duqeyn ka wadaa Lebanon. Israa'iil hadii lagu dhufto Israa'iil way soo jawaabaysaa. dagaalkan wuxuu cirka sii galaya marka Israa'iil soo gasho. haddaba Congress-ka maxay yiraahdeen aan ilaahay sanadka Mareykanka dadka ka hadlay waxa kamid ah Senator Warren ayaa sheegay inay macquul ahayn in loo ogolaado dagaalkan in mar kale la soo celiyo iyadoo Congress-ka dalka iyo sanadka Mareykanka labadaba ay aaminsan yihiin dagaalkan dhaqaale ahaan inuu sax ahayn siyaasad ahaan inuu san haboonayn oo qasaare ay ku tahay Mareykanka iyo xulafadiisaba. waxa sidoo kale Trump lagu eedeeyay inuu dagaalka soo celinayo isagoo wali diyaarin xulafada iyo saaxiibada iyadoo sidoo kale aan la qeexin ujeedka rasmiga ah la rabo dagaalkan in lagu guuleysto. taas oo mid aadka loogu dhaliilay Trump iyo kooxdiisa. waxay awoodi waayeen intii dagaalka lagu jiray madaxda Mareykanka oo ka mid yahay madaxweyne Trump oo ka mid yahay xogayaha arrimaha dibadda xogayaha dagaalka Peter Hegseth iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance waxay u qeexi waayeen dadka xitaa afayeenka aqalka cad marka la weydiiyay hadafka dagaalka ay ka leeyihiin maxay tahay ma regime change ba ma nidaamka inaad bedeshaan ma in Iran nuclear ay ka tanaasusho maxaa waaye ilaan dagaal marka la gal ujeedada loo galaa mar waxay dhaheen regime change mar waxay dhamayeen nidaamka inaan bedelno marabno mar waxay leeyihiin Iran barabna cadaadis inaan saarno ujeedada qeexan ay keeni waayeen. ugu dambeyn iyadoo hadaf la gaarin ay waxay ku qasbanayeen wada hadallo inay ka galaan Hormuz in la furo. ujeedka dagaalka hadda wuxuu ku soo noqday Iran oo rabta lacag inay ka qaado Hormuz rabtana Iran inay Israa'iil inay joojiso weerarada Lebanon. macnaha hadda Iran hadaf leeyahay Mareykanka hadaf malaha.